nolosha maanta zamankan waa sidee anu ha noolaado kana ha dhinto anu han dhargo kana ha gaajoodo waxaan haysto anaa iskala boo ku odhan haye kan wuxuu hayana hee anay ugu fiican yihiin waxba la iskuma ogolo maanta adduunka nolol la iskuma ogolo dhaqaale la iskuma ogolo nabadgelyo la iskuma ogolo amni la iskuma ogolo cizi la iskuma ogolo wixii fiicanba buu ku leeyahay nin walba anay ugu fiican tahay dee diinteennu sidaa ma qabta dee diinteennu waxay qabtaa waaxibba linnaasi maa tuxibu linafsika takun musliman buu nebigu yidhi waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaaga muslimkaa la jeclow muslim quman oo toosan baad noqonaya buu rasuulku kaa yidhi sal alla alay slam in islaamnimadaadu sax noqoto oo dhammaystiranto waxaa ku xidhan inaad waxaad naftaada la jeceshahay wanaaga oo dhan aad dadka kale la jeclaato weliba nebigu ma odhan muslimka linnaas dadka buu nebigu dadka la jeclow dadka la jeclow saa darteed raggiinan akhyaarta ilaahay jalla wacalaa nicmadaas islaamnimada iyo nabadgelyada waddanka aan ku haysanay iyo arsaaqadda aad waddanka ku haysataan allah inoo ziyaadiyo kuwa ku shukrin allah inaga dhigo sanad iyo bar baan u malayn ama 2 sana niga maqnaa waan ku habo yaabay isli markaan miday waxaasoo hantiya Soomaali baa leh runtii waan ku farxaynaa masaajidiina meel walba way nooga dhisan tahay maanta Sheekh Ismaaciil baa maanta igu lahaa 73 baa igu horeysay buu isli oo nimaado 73 masaajidka eedka ku yaalan garan buu anigu maanta nimsay miskida ku taala xaafadan masaajidi madaristi cilmigi quraanki maahidi culumadii ganacsigii guryihii takuy qurbaha ka soo yaacay ubadkooda la soo yaacay meesha maanta inta badan ay yimaadaan ay diin ka dugsanayaan waa magaaladiina Nairobi weeyna xaafadda khaasatan marka nicmadaas ilaahay haynoo adkeeyo dalkeenii aan ka soo jeedana nabadiisa Allah haynoo sii adkeeyo aamin dhaxada nicmadaas sidee ku noqonaysaa sidee ku ilaashamay الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بإلهين الذين كوي إن مكناهم في الأرض بإلهين حدان دولك التمكين إيك وان دولك إلهين آن إيك إنتون كان آن دجنون كو أبورنو وحي إلهين أفر خصلات بإلهين كو شيء أفر خصلات وأسباب التمكين بعلماء ليهن دولك اعتمادين إلهين التمكيني مانتا أغلبها أنت لأجنا أنك دسني ganacsiga Soomaali maanta adduunka ugu badan maanta halkan ay ku leedahay halkan ganacsigana maanta aan ku leenahay madaarista iyo masaajida quruxda badan lana Ilaahay uu nagu siiyay asbaabta inoo ilaalinaysa bay culimadu leeyihiin markii aayadda Quraanka la sharxay waxa weeyaan wa afarta khasladood aayadda ay sheegayso aqaamu salaata ba Ilaahay kuwa dhulka aan tamkiinine dhulka aan dejinay dhulka markaan dejinay tamkiinine ba Ilaahay shaqada ugu horeysay qabanayaan waxa weeyaan salaaday ogaan baa Ilaahay yiri wa aatu zakata zakadana way la yimaadaan way dhiibaan way bixiyaan wa amaru bil ma'ruf wa nagana way faraan wa nahu 'anil munkar humahana way iska reebaan afar khasladood weeyaan asfarta haday ummad meel joogta ay la timaadaba iyo culimadu leeyihiin ummadaasi wax u kordhan mooyaan cid wax ka qaadaysa ma jirto ودولك يا اسكله إلهي بالله إلهي أيود جيامة تغانا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين دولك إلهي بالله أسباب تدولك اللغو دقا صلاة داوغه الرئيسة زكاة الله إلهي وحقق والحقق الله مريا كو حكتا وناقا أمد الله شاقو خير كي دعوة الله شاقيا كو حكتا منكرك أمد الله قرب ولا جزوليا كوسي حكتا ما نك الله هارين أفرتا خصلة أسباب التمكين أركا أنت إذا أنت اللي جا وضن كان عبقشتين وحكوا إلى لنا النبي علماء دوليين صلاة دي واضح إنسان الله ينزي هذه
كل الزكاة نواد بحساب بنو ملايين إن شاء الله هذا زكاة نبحية حصنوا أموالكم بالزكاة ونبي حوله إن حرس حد وحد وقد كتاب ونبي بالزكاة حول الزكاة اللي بحية بري يبض بري يبضكم الله ما بلي هذا نقاش حول الضيعمي أو جبتي أمل مي وحول حق إله اللي يقول له أنا اللي أقول إلى حق إله لجمع إلى المركب وربع أركب ضمان أشران شدان دون إن الرباني جا إن قالوا هذا دون إنه وإن أفر تصف الله ينجحلا صلاة دي زكاة دي دعوة وين نقول يرتاح لكن رين يروي علماء ده بتكون ديسين دعوة علماء أي هيانا واتير راغبين تدك خيرك الجعلاء خيرك الجعلاء ما هي دعوة دودي وبرارجين يعني وحبي بريان لكن أنت ما أنت مسلمين أنت مساجد علماء ده كحرا يا أنت كحرنين يا ما بدن يا ما بدن ما أنت المسجد كشيء ظهر كي هن عبدانا يا قبر مسلمة ده أيس عاشقين قبرنا قبر في عم بهذا ونيك وسكيل على سي شرط بيكون حرتية الإسلام والإسلام يقول أبي هذه يدك يجيب وشيبتين نيكي هو إسلامي مركو هو يجي ديار صدق لي عروس بنا قبر ده اللي هو يو أيوة أبي هذا لك افتما وحكوي رواد إسلامته حل مالنا مسكيت ككومان لكن السياق دعدي وعود أدنكم مركو دعوه جوابته واسكفوا ضده وكل شيء أدنكم مركو دعوه مسلمينتو إلا مسكيت يسوق شيء إلا بنانك يكون هذا أبو ولي بقى أنت بناك يكون هذا حساب بدن بول بركة أنت سوق لا يصير ترى يرى أنو كمان بيرينه أنت بناك جوكت ترى بدل لك كم ده يقول ترى يكون أبو كيو سو واقع ما هذا الكاس واقع سوما بركة علماء دعوة أي وضان رنتي ودعوة دتك خير كجعلة مرحبا جزاكم الله waxay naga maqan marka dacwada leer dacwatu ghayr ar-raghibin dadka aan khayrka jecelayn ee culimada aan ku xidhnayn ee masaajida aan ku xidhnayn dacwadoodii baan iyaga ka gaabinaynaa Djibouti waxyaabaha ilaahay noogu nicmeeyay waxa kamid ah imika Afrika ininka naga sixiga annaka Soomaalida dadka Soomaali ku hadla maanta halkana ugu sokayso degantihiin halka wixii ka sagay waa qaaradda Afrika wax la galayo Djibouti waa jasiirada al-Arab aan qarka ku haynaa annaka لكن إلهي فضلك واحد نيشيك جماعة عدد جيبوتي كبحة وجيبوتي واستعمار سنة فرنسيسكو بقول يا إنك بدن ودتك لوميي ما أنت بالنيرة الريج جيبوتي حتى ده أنا لها الله يو نيجر جماعكم مكان نيجر والنيامي ويكسور بحيان وحنوت تجنبي كله تولي كقاركود ضد بقول مسلمين وصلاة بان تكنين ومحاول تكوي إذا مركل اللي يرادو أنك الشيخ أولية دي إذا نجت تقول عكس صينا جماعة ما كسر الرمز حتى جماعكم بقى السنغال والله مد بدأ واحد آمسن شو خبل بيجتو كده عنكم حقوقتو كده حج كأم بتجي أنتوا العقد كبحنو صلاة حرم قال لقيتو كده وبقولكم سولموا ورنها لما بالوضع ما كون اعتكافي أونو شن كنا قف سجى كقاعد يا صلاة دودي بالكور رمشان مالي سنغال نيجر توغو بينا ايفري كوست بوركينا فاسو غينيا كوناكري انتاس ودنا ني شيغايو جماعه عدد الرجبوت way ku baxaan Senegal hadday joogan Niger hadday joogan Tanzania hadday joogan Burkina Faso jamaa hadda u socota Uganda jamaa u socota Burundi jamaa u diray maalin dhaw ay tagtay dadkaasi waliba dhalinyarta sida u baxaysa ni sheegayo dhalinyar diin dhigatay hamoodin inay yihiin may waa dhalinyartii iskoolada jaamacadaha Faransiiska ka soo baxay daalku u talagal inuu lumiyo ayaa inta ilaahay dacwadan uu siiyay ayaa intii culimada ay ka maqleen intay qaadaan bay wadanka adduunka la dhex marayaan ummaddu maanta way gubanaysaa olol ba ka baxay maanta ummadda hangaadno oo insha Allah ragina akhyarta ganacsatada insha Allah dadaalka diinta inkuna qaybteena gaga aadan ka qaata insha Allah dhahada yaa u diyaar inuu ka qaato qaybtiisa الله ينوافق الله ينقبله بشان سبتمبر آخر كذا اجتماعي هرجيسا جرا وصدق يلا باتنك كدعي دونا أسبوع عدمنا مؤتمر كي يا دعي دونا هل كان كهر الله وقبته علماء هذا يقصوا عدالة ما انتظر علماء يقصوا عتمانتين لقد يونو عاوي بحيان مركب بدل كهدين إنكم قيبتنا قاعدين هكا قاعدنا وقت جينا هم بحنو دعوة وقت هلو صوبيو وردكان كاجي مهرد هذا وقت أسمين ما يسوضيا
tijaaratu diin markaa inay iswada sidee ku socotaa markaa soo in dad waa inay diintu yeelato soo maha marka insha Allah dhaqaalaheenna maalkeenna waqtigeenna inaan wada bixino jamaacada dacwada tabliiq horta dhaqaale ma qaataan ogaada anu dhaqaale inaga dooni mayno waqtigiina u baahanahay inaan nasiisaan